wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco waxay si rasmi uga daafurtay mashruuc ballaaran oo ah mashruuc wax lagaga qabanayo abaaraha soo noqnoqda waxaana mashruucani fulinaya hay'adaha FAO iyo sidoo kale hay'adda WFP isagoo mashruucani socon doono muddo 5 sano ah ugu horeyntii waxa munaasabadaasi lagu daafurayay mashruucani ballaaran ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramax iyo sidoo kale maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad waxaana ay si ballaaran u soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta mashruucani muhiimka ah ay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland keentay gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda qorsheynta hay'adaha FAO iyo WFP oo maanta halkan noogu daafuray mashruuc laga fulin doono gobolkan qiimo badan oo u leh sidii looga hortagi lahaa abaaraha had iyo jeeraale soo noqnoqonaya mashruucaasi oo runtii qiimo weyn ku fadhiya oo qaasana wasiirkana ugu sii mahadnaqayno markuu dooray in gobolkan Togdheer laga fuliyo mashruuca halkan waxa noogu yimi hay'ado international oo hogaaminayo wasiirka qorsheynta qaranka hay'adahaas waxay u socdaan mashruuc 5 years plan 5 sanadood gobolkan Togdheer lagaga shaqeyn doono haday noqoto dhinaca biyaha haday noqoto beeri iyo dhinaca caafimaadkii waxa inta raaci doona waxyaabahan u faradhuudhuubanahay gobol ahaan iyo degmo ahaanba ee baahiyaad oo aynu ku dari doono ku kabi doono waa mashruuc socon doona 5 sanadood waxaanu ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyadoo baahiyo badan ka jiraan Soomaaliland mashruucaas oo ilaa 15 milyan oo dollar ku kacay in gobolkan Togdheer 5 sanadood laga qabto waa kireerti uu ku leeyahay barasaabkii hore wasiirka qorsheynta qaranka gobolkan Togdheer waana ugu mahadnaqaynaa waana ugu insha Allah waa hayn doon geesta kale wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyay mashruucan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaanu maanta idin wadnaa mashruuc runtii sida uu sheegay maayir mashruuc aad iyo aad ugu muhiim ah gobolka mashruucani wuxuu inaga caawin doonaa kasoo kabashada abaaraha waxaan resilience-ka leeyahay iyo malnutrition-ka ayuu ku aadan mashruucaas waxa inagu deeqday dawladda Canada waxa la siiyay 3 dal oo Afrikaana nasiib baynu helay inaynu waddanka xaad ee Soomaaliland uu noqdo waliba lacagta ugu badan inaynu qaadano 30 milyan buu ahaa inagu 15 milyan baynu haddana waxa nasiib sii yeeshay gobolkii Togdheer in mashruuca laga fuliyo gobolkii aan barasaabka ka ahaa mashruuca waxaan u soo riixnay oo Togdheer u keenay oo wanqashi magacii Qabyatire Burco in loo abaal gudo way istaahishaa in wax badan la tarno way dad iyagu abaalka gala celiyana way annaguna kadalik abaalka ay noo gala waa u celinaynaa insha Allah tan oo kaliya ma aha wax fara badan ayaanu gobolka u soo wadnaa maanta farxad bay mashruuc aanay gobolada kale helin saa Maxamed Muraad sheegay oo 15 milyan oo 5 sanadood soconaya oo waliba dhibtii ugu badnayd gobolada ay ku dhacday bay ahayd waynagii ka wada shaqeynay waxa weeyaan waxa jirta baahi fara badan culayskii ugu badnaa abaaruhu ku dhacay gobolkan alxamdulillah maanta haday mashruuc helaan waxaan soo jeedinayaa mashruuca waxa fulinaya wasaaradaha beeraha deegaanka xanaanada xoolaha iyo caafimaadka halkana waxa uga wakiila isuduwayaashooda waxa iyagana ku gaargarayn oo dhakada ka ilaalinaya maayirka magaalada Burco iyo barasaabka ka ilaalinaya mashruuca waxaan doonaa mashruucaas inaanu si wanaagsan u soo dhaweysaan WFP iyo FAO cid kasto wadanayna soo dhaweysaan mashruucaas waxaanu kaga raysan doonaa inuu kaga soo doogi doonaa abaarihii ina bariinsaday Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV Burco.